السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan akhyaarta inta jaan ku xiran inta ku cusub dhamaantiin ku soo dhawaada muuqaalkan waa aniga Yaxya Maxamed Axmed. Maanta waxaan rabaa muuqaalkan inaan kaga hadlo 10 feature oo kale oo ku saabsan Google Chrome. Hore waxaan u sharaxnay 7. Maanta waxaan raacinaa 10 kale. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan. feature-keena koobaad ama tibka koobaad ee aan rabo inaan maanta kaga hadlo waxay tahay sidee ugu share-garan kartaa website kaaga furan computer-kaaga telefoonkaaga. badanaa waxaa dhacda adigoo maalan oo kale maqaal akhrinayo kale linkiguna aad u dheeriyo kale sidee si fudud ugu share-garan kartaa. waxaad sameynaysaa marka koobaad waxa feature-kan si kugu hagaag waxa muhiim ah in aad Google Chrome-ka computer-kaaga kugu jirana aad kaga jirto Gmail isla Gmail-kaasna aad ku furato Chrome-ka telefoonkaaga. waxaa si fudud tagaysaa markii labadaba Gmail-ku kugu furan yahay tab-ka aad rabto inaad share garayso kadib waxaad maalan oo kale hadda Google aan booqanabal Google markaa booqato isla markii waxaad arkaysaa in aad u diri karto send to Huawei phone oo ah telefoonkeyga. haddii aan saa ugu diro oo iraado u dir waxaa arkaynaa in telefoonkeena uu isla markii notification imanayo. notification-ka haddii aan ku dhufto wuxuu igeynayaa website-kii la ila share gareeyo. sidaa ayaa marka si fudud ugu share garan kartaa linkii computer-kaaga telefoonkaagana uga soo saari kartaa. tip number 2 waxay tahay isla shaqadii aan hadda qabanay sidee computer-ka uu diri karnaa. مثلا adigoo telefoonkaaga kaga jiro kale haddii aad u baahato inaad computer-ka ku isticmaasho ama ka dhamaystirto waxa akhrinayso kale ama muuqaal ku daawato waxaad si fudud sameynaysaa meesha aad joogto tab-kaaga waxaad furaysaa meesha saddexda dhibcood ee ku soo baxaya update aniga iga baahan yahay saddex ima soo baxayso. almuhim dhinaca ayaa soo furaysaa kadibna waxaad xaga ka dooranaysaa share meesha ku qoran tahay. share meesha ku qoran tahay markaad soo saartid waxaad ka dooranaysaa send to your desktop meesha ku qoran tahay. isla markaa waxaa ku soo baxay computerada kale ee ku xiran maxaa la raada Gmail-kaaga. markaas aad tiraahdo HP ayaa active ayuu ku leeyahay ku dhufto markaan ku dhufto isla markaa waxaa arkaysaa inuu igu diray computer-kayga notification ah website-kii aan geli karo. markaan saa ugu dhufto waxaa arkaysaa inuu sidaa kugu furayo isla website-kaaga. Google-ha kaliyana hadda maaha tusaale ahaan oo soo qaadanay mowqic kasta ama website kasta oo aad ku jirta ayaa sidaa u isticmaali kartaa. tip number 3 ama feature-ka saddexaad rabo inaan kaga sheekeeyo waxay tahay isla ku saabsan link sharing-ka ama in aad share garayso linkiga meesha qoraalka ama website-ka. waxa weeye wax loo yaqaano haddii aanad ku xirnayn oo kale Gmail-ka uu kan ku anfacaya oo ah in aad barcode u samayso website-ka aad ku jirto kadibna aad ku scan garayso telefoonkaaga barcode-kiisa. مثلا oo kale hadda waxaan tagaynaa Google isla safxadan oo kale haddaan tusaale ku bixino waxaan leeyahay markaan saa ugu dul dhufto qaybta linkiga waxaa arkaysaa inay iiga soo baxayaan garabkeeda badhamadaas ama iconadaas iconkaas barcode-ka ayaan ku dhufanayaa. isla markaa waxaa arkaysaa inuu ku generate gareynayo maxaa la raada barcode aad maxaa la raada sawir ka qaadi karto. haddaa barcode-kii dheer haysato telefoonkaaga kale asaga ku dhufanaysa haddii kalena kamarada ayaa badanaa ay telefoonada hadda jira ay isticmaalaan. kamarada marka aan ku dhufto barcode reader-na aan soo saaro si fudud waxaa arkaysaa in uu sidaa kugu scan gareynayo kadibna uu kugu tegayo website-ka kadib wuxuu ku leeyahay Google ma tagaa continue haddaan iraahdo sida ay ku booqanayaan. tip number 4 ama feature-ka afraad ee aan rabo xagga inaan ka sheego waxay tahay sidee u maamuli kartaa Chrome Google Chrome-kaaga ama Chrome-kaaga markuu soo kacayo kale waxa soo baxaya. waxaan tagaynaa markaa settings ayaan tagaynaa saddexda dhibcood intaan soo furno ayaan settings ku dhufanaa. settings markaan ku dhufano waxaan tagaynaa qaybta u dambeysa ay ku qoran tahay on startup. on startup markaan ku dhufto waxaa arkaysaa inay ku soo baxayaan saddex option. saddexda option waxa way ka koobaad marka kasta uu Google Chrome ku furmayo inuu tab cusub ama daaqad cusub ku furo. ka labaad waa inaad meeshii aad kaga tagto uu kaaga bilaabo macnaha tabs-kii furnaa uu ku soo garay. ka kalena waxa weeye inaad pages ama website gaara aad doorato website kale aad ku dari kartaa si ay kuugu wada furmaan website aad booqato kala hadii jiraan mar walba. feature-ka shanaad oo aan isleeyahay waa feature-ka ugu muhiimsan wuxuu noqonayaa notification blocker.
website-yada qaar badanaa waxay sameeyaan spam waliba kuwa ah ama virus kuwa leh waxay sameeyaan in ay notification badan kuu diraan intay computerka ku save gareeyaan notification kadibna chromekaagu dhan aad waxba ka akhrin kari weydo mar walba ay kusoo baxayso notification xagga mar walba ama xayeysiimo badan ay kusoo baxayaan si aad iskaga xirto notificationskaas waxaad sameynaysaa sidan waxaad tegaysaa settingska ayaa tegaysaa meesha haddoo kale settings markaa ku dhufato waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku qoran tahay privacy and security markaa ku dhufato waxaa ku dhufanaysaa waxaa kusoo baxaya afarta option ka u dambeeya ay ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay site settings markaa ku dhufato waxaad tegaysaa qaybta ay ku qoran tahay permissions location iyo camera iyo waxyaabahan dhan waa permissionada aa website-yada siisay qaybta notificationka ayaad ku dhufanaysaa waxaa kusoo baxaya dhammaan xaggan website-yada aad siisay notification inay soo diri karaan haddii aad rabto mowqicaan inaad iska xidho allow qaybtay ku qoran tahay waxaa ka igaysaa mowqic aanad garanayn ama aanad isticmaalin haddii uu ku jira xagga mowqic aanad garanayn ama mowqic virus ah waxaad si fudud tegaysaa saddexdaa dhibcood kadibna waxaa leedahay remove ama block ayaa dhehaysaa iska block garanaysaa sidaa ayaad notificationadana iskaga xiri kartaa mar walba waxaa xagga hubisaa in mowqicyada aad allowga tiri ay yihiin website-yada aad booqata ama aad ku kalsoon tahay featureka lixaad aan rabo inaan muuqaalkan ku sharxa waxay tahay waxaa loo yaqaano passwords ama baaswordada aad ku save garaysatay chromekaaga waxaad tegaysaa baaswordada kuugu save garan si aad u ogaato settings ayaad tegaysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa qaybta autofill ay ku qoran tahay kadibna waxaa ku dhufanaysaa qaybta u sareysa passwords ku qoran tahay xaggan waxaa ku jira passwordada aad ku save garaysay ama mowqicyada aad gashay passwordadooda kuugu save garaysan yihiin chromekaaga waxaa xaggan lagu save garayaa passwordo haddii aan jirin qof kale oo computer kula isticmaalaya oo admin passwordka yaqaana haddii qof kale oo admin passwordka kula yaqaana uu jiro si fudud ayuu ku ogaan karaa passwordada saa awgeed ma fiicno inaad xaggan ku save garayso waxaa fiican haddii aad save garanayso in aad Google account-kaaga ku save garayso haddaba marka aad password xaggan kuugu save garaysan yihiin si ku ogaan kartaa passwordka in la furay ama qof kale uu furay waxaad si fudud tegi kartaa check passwords meesha ku qoran tahay kadib check ayuu ku sameynaya kadibna wuxuu kuu sheegayaa passwordada la compromise gareeyay ama qof uu hore u furay akhriyayna sidaasna ayaa ku bedeli kartaa sida fiicanna mar walba waxa weeye in aad computerka hadda kaligaa isticmaasho caadi waxaad doonto xagga ku save garan kartaa haddii aad lagula isticmaalo computerka waxaa fiican inaad ku save garayso Google account-kaada oo aad Chrome-ka ku save garaynin tip number 7 ama featureka toddobaad ee muuqaalkan maanta kaga hadli doono waxa waaye wax loo yaqaano incognito tab sidee u gali kartaa maxay tahay marka koobaad incognito tab waxaa laga galaa si fudud xagga ayaa soo furaysaa optionka ugu koreeya waxa waaye new tab waa tab caadi ah new window waa isla tab caadi ah laakiin daaqad labaad safxad labaad kuugu furaya new incognito window marka daxaga ku dhufada ay ku furnaysaa incognito window waxay tahay sida meesha ku qoranba waxaan uu computer ka takhalusayaa marka ka dhamaato sessionkan marka xidho wuxuu ka takhalusayaa browsing history meelaha aad tagtay oo dhan ama websiteska aad tagtay مثلا cookieska iyo siteka informationska ay ka reebaan oo kale iyo computerka ku ururiyaan iyo informationka adiga gelisaba formska autofillka ma galayaan marka laakiin wuxuu ku yiri inta marka laga soo tago waxaan wali aadan laga qari karin websiteska aad booqato way ogaan karaan meesha laga soo booqday macnaha IP addresska way ogaan karaan employer oo school oo ogaan karaa sababtoo ah datadiisa dhex maraysa internet service provider ISP gana wuu ogaan karaa intaasoo dhan way ogaan karaan laakiin locally computerka marka uu session ka dhamaado daaqada marka ka baxdo history kama reebayo waxna kama reebayo daaqada marka waxa loo isticmaalaa badanaa marka computer aan lahayn oo kale ka galayso ama مثلا oo kale aad rabto kale account labaad inaad ka furto kale مثلا oo kale Google aad Facebook kala ku furan account labaad inaad ka gasho rabtaa meesha qofkii account-kii aad ka bixi lahayd account-kii hore log out lahayd safxadan cusub ay ka gali kartaa account labaad sababtoo ah safxadan waa safxad khaas ah oo aan macnaha Chrome-ka ku jirin safxadan
waxa kaliya qarin kartaa sida xagan ku qoranba waa locally macnaha computerkaaga bas ay ku koobantaa, laakiin wixii ka baxsan websites aad booqato dhammaantood way ogaan karaan. Si aanay u ogaan xataa websiteskaas IP addresskaaga iyo xataa internetka waxyaabahaas oo dhan waxaa la isticmaalaa VPN-ka ama waxa loo yaqaano virtual private networks-ka isticmaalasa, kuwaas xataa waxay qarinayaan IP addresskaaga sababtoo funnel intaa lagu geliyo ayaa IP address kale website-ka u arkaya mana ku ogaan karo. Laakiin incognito window waxay u fiican tahay waxyaabahaas oo dhan private mode-ka. badanaan ani waxaan kugula talinayaa haddii aad meel kale ka galaysidba account-kaaga computer kale, computer caama, waxaa fiican inaad ka gasho incognito. sababtoo ah incognito inaad ka gasho waxay ku fiican tahay xataa haddaa ilowdo oo aad ka kacdo mathalan oo aad ka baxdo adoon xidhin account-ka, waxaa iyada marka ugu horeysa computerku isxidho ama Chrome-ka uu xidhmo hore ayuu account-kaaga ku baxayaa, mar dambana ma geli karayo qofka. Tip number 8 waxa wax loo yaqaano keyboard shortcuts. Chrome-ka waxa uu leeyahay wax la yiraahdo keyboard shortcuts. Haddii aad wax mouse haysan waxaad ka isticmaali kartaa keyboard-ka. Mathalan oo kale hadda control N haddii aan iraahdo wuxuu ii furayaa maxaa la yiraahdaa tab cusub. haddii control W aan iraahdo tabkii wuu xidhayaa. haddii aan rabo tabskaas inaan ku kala gudbo control 1 ta ugu koobaad oo kale, control 2, control 3 saas ayaa u soconaysaa. iyo maxaa la yiraahdaa shortcuts badan waxaad ka baari kartaa Google-ka aad ka heli doontaa Chrome shortcuts hadaad tiraahdo list dhammaystiran. anigana insha Allah tacaala muuqaalkan xagga hoose linkska ayaan soo geli doonaa. marka inaad kuwa baratana waxay kugu fududaynaysaa waqti badan ayay kuusoo koobaysaa oo kaaga bixi lahaa inta aad muuska ku raadinayso kala mathalan option-ka aad rabto. feature-ka 9aad ama isticmaalka 9aad ee rabo muuqaalka inaan ku sheego wax loo yaqaano Chrome cleanup ama Chrome reset. waxa ay ku fiican yihiin labadan option haddii lacala Chrome-ku ka ciladoobo si aad u cilad saartana aad garan weydo. مثلا oo kale haddii notificationskii oo kale aan hadda soo sheegno oo kale ama websites virus leh oo kale uu ka maamulanayo Chrome-ka, sidee ugu soo celin kartaa default settings amaba aad u masixi kartaa dhammaan macluumaadka si asagoo cusub oo kale si cusub Chrome cusub oo kale kugu noqdo. waxaad si fudud tegi kartaa Chrome links ayaa waxaad tegi kartaa chrome/settings/cleanup waa dhigi kartaa. waxaa kaloo tegi kartaa settings intaad ku dhufato ayaad markii safxadan settings kusoo baxdo ayaad advanced intaad soo furto ayaa waxaad dhigi kartaa reset and cleanup. kadibna waxaad taabanaysaa restore settings to original default ayaad leedahay. kadibna reset ayaa leedahay ama clean up computer ayaa leedahay si uu kuugu nadiifiyo computerka xataa ay temp fileska uu ku save gareeyo. feature-ka u dambeeyo ee aan kusoo gabagabeynayo muuqaalkan ee tobnaad waxa waaye feature aad u sahlan. waa in aad safxad walbo aad joogto Chrome-ka inta isticmaalayso translation intaad Google Translate oo kale aadi lahayd si fudud aad u translate gareyn karto adigoo isticmaalaya intaad linkiga ku dhufato ayaad waxa ku dhufanaysaa badhankaas oo ah page-kan iyo tarjum. مثلا oo kale luqadda Soomaali oo kale iga dhig haddii aad tiraahdo wuxuu kaaga dhigayaa hadda uu ku bedelay raadinta Google. waxaan dareemayaa nasiib Google waxaa laga bixiyay waxaa arkaysaa inuu page-ka sidaa kuugu macneynayo. haddii aad page luqad aan garanayn oo kale ku gasho kalena xagga ayaa si fudud uga bedeli kartaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto. haddii aad ka faa'iideysay fadlan la wadaag qofka is leedahay ama cid kastoo is leedahay way dananaysaa ama aad ay u isticmaashaa Google Chrome. muuqaalada soo socda insha Allah tacaala waxaa kaga hadli doonaa extensions Google Chrome aad ku darsan karto oo waxyaabo badan qaban kara. waxaan sheegi doonaa haddii ilaahay extensions designerska ama dadka nashqadeeya wax nashqadeeya kale u fiican iyo extensions si guud ba inaad haysato kuugu fiican ardayda kuugu fiican. insha Allah tacaala serieskan waxaan si fiican uga bixi doonaa haddii ilaahay Google Chrome ayaan focus ka saarnaa. insha Allah tacaala wixii ka dambeeyana muuqaalada kale waxaan tarkiis ka saari doonaa waxyaabo badan oo kale. waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biiri doontaan.
intaan muuqaalkan nabad isku arki doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.